Maalintii shalay ahayd ayaa waxaa la arkayay haween aad u hubeysan oo iskugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee wadanka Afghanistan. Dumarkaas oo ka soo horjeeda ciidamada Taliban oo sii qabsanaya maalinba maalinta xigta meelo cusub oo hor leh, ayagoona dagaal aad u culus kula jira dowladda tagta daran ee Kaabul. Haweenkan ayaa soo bandhigay caradooda ku aadan in la joojiyo ciidamada awoodda badan ee Taliban, kuwaas oo ka tugtuuronaaday ciidamadii dowladdii awalba ay ilaalin jireen dowladaha shisheeye iyo gaashaanbuurta NATO, iyadoona ay hadda ka baxayaan wadanka Afghanistan asiga oo Mareykanka ciidamadii ugu horeeyay ka saaray Afghanistan. Hase yeeshee, dumarkan oo aad u hubeysnaa oo fagaarooyinka waaweyn ee wadankaasi iskugu soo baxay ayaa waxa ay ku baaqayeen in laga hortago oo la iska celiyo ciidamada Taliban. Haddaba dumarkan ayaa waxay ogyihiin in haddii ay wadanka la wareegaan ciidamada Taliban inay awaamiir aad u culus ay dul dhigi doonaan dumarka, ayagoo hadda ka hor ka joojiyay waxbarashada iyo waxyaabaha shaqooyinka maxalliga ah ee ay dumarka ka shaqeystaan. Dumarkan haweeney u hadashay oo u ahayd afhayeenka ururka haweenka wadanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in ay haweenkan qaarkoodba diyaar yihiin in ay ka hortagaan oo weliba jiidda hore ee dagaalka ay galaan, inkastoo taasi aysan suurtagal u ahayn laba arrin midood. Midna waa mid siyaasad, midda kalena ay tahay in aysan haysan khibrad iyo tababar ku filan oo ay hadda kaga hortagaan ciidamada Taliban ee meelaha badan ee wadankaasi kamida sii qabsanayo. Ciidamada Taliban ayaa waxaa la sheegayaa inay xuduudaha ay la wadaagaan Iran iyo Turkmenistan iyo baadiyaha weliba ay la sii wareegayaan, ayagoona dowladdii ka awood badiyay dhan walba. Hogaamiye kooxeedkii waagii qabiilada ay isku dagaali jirtay Afghanistan, Ismaaciil Khan, ayaa asigana waxa uu ugu baaqay shacabka iyo taageerayaashiisa iyo dhalinyarada in ay qaataan hubka si looga hortago ciidamada Taliban loona ilaaliyo meelaha muhiimka u ah wadanka. Inkastoo afhayeenka xukuumadda dowladda Koonfurta Afghanistan uu sheegay in aysan suurtagal ahayn in hadda ciidamo beeleed ama qaab ciidan beeleed la isku hubeeyo. Ismaaciil Khan oo 70 sano jir ah ayaa waxa uu ku bogaadiyay dhalinyarada iyo taageerayaashiisa in ay hubka qaataan, dagaalkana ay galaan, waana guuleysan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo ayuu yiri. Asigana waxa uu ballan qaaday in uu dagaalka afka hore ka gali doono haddii laga maarmi waayo. Si kastaba ha ahaatee, madaxa Golaha Nabadda Afghanistan Cabdullaahi nin lagu magacaabo ayaa qariyay in Madaxa Golaha Nabadda Afghanistan Cabdullaahi ayaa qiray in iyadoo abaabulka maleeshiyaadka sida Khan oo kale aysan ahayn ikhtiyaarka ugu fiican, laakiin ay muhiimadu tahay in laga hortago qalalaasaha iyo dhibaatada ay wadaan ciidamada Taliban. Ninkan ah madaxa Golaha Nabadda Afghanistan ayaana waxa uu sheegay haddaan laga hortagin kooxda Taliban, weligeed uma soo fadhiisan doonto kursiga wadahadalka iyo nabad u dabaaldhigida wadanka Afghanistan, ayuu yiri. Mana ogolaan doonto wadaxaajood iyo wadahadal nabadeed oo lagu dhammeeyo khilaafka iyo dagaalada ka taagan wadanka Afghanistan haddii aanan hadeertaan laga hortagin oonan la iska dhicinin, ayuu yiri. Mid ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in inta badan gobolka Herat iyo laba magaalo oo ku dhow Kazara iyo Injil